لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وموالاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم maanta oo maalin isniina waxaan soo gaaray ku soo dhawaanaynaa oo ku siqeynaa maalmalba gabagabadii dowradii sayidaadka ama hooyooyinka. maanta waxaan la joogaa الشيخ الدكتور محمود أبو شيبة oo aad looga yaqaano bariga Afrika gaar ahaan Kenya iyo Soomaaliya. Sheekh Abu Shayba wuxuu noo soo jeedin doonaa muxaadaradii koowaad ee maanta. ciwaankeeduna waxa weeye al-isticdaad lil-yawm al-aakhirah, sida loogu diyaar garoobayo maalinka qiyaamo, ama daartani inay tahay daartii diyaar garowga oo daartii saxda ahayd ee nolosha rasmiga ahayd loogu diyaar garoobi lahaa, loo sahay qaadan lahaa buu ka hadli doonaa insha allahu tacaala. muxaadaradiisu waxay socon doontaa 1 saac insha allahu tacaala, kadibna waan soo khatmaynaa insha allahu tacaala muxaadaradii kale ee ugu dambeysay. marka Sheekh Maxamuud ku soo dhawow. barakallahu fiik. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، الله سبحانه وتعالى أيامكم أهدنينا نعمتي سفرها بدن ونعمي سلام مضى أبو رستا caafimaadka iyo caruurta, xoolaha, cilmiga, camalka wanaagsan iyo intaan la soo koobi karin ee rabbana siiyey subxaanahu wa tacaala, asagaa ku mahadsan. uma walaalaha diyaariyey muxaadaraadkan iyo kulamadan, doctor khadar nagala joogo iyo ragga la shaqaynaya iyo gabdhaha la shaqaynaya, ayaguna mahadsan. jazaakum allahu khayran. inta soo xaadirtana khayr allah siiya ayankana oo inay ka faa'iidaystaan u timid. sidaa laynii sheegay wuxuu ku saabsan yahay ama ku saabsan tahay muxaadaradu oo diyaargarowga maalinta dambe ama aakhirada. marka waxaan uga hadli doonaa markii muqadimada lagu daro ama horudhaca 12 qodob ayaan dul istaagi doonaa insha allah. horudhaca geerida waad garanaysaan, waxa weeyaan waa marxalo oo qof kastoo insaan uu marahayo oo qofna aysan dhaafayn. allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala: acuudu billaahi min ashaydaani الrajiim, كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدح داس كل ودماوي، كل نفس ذائقة الموت. إذ مركا لضافها يا مجرد معنونه وحويان maraaxisha insaanku uu marayo ama uu soo maray ayay qayb ka tahay. rabbi subxaanahu wa tacaalaa insaanka gaalnimada uu gaaloobo oo xaqa uu diido asagoo la yaaban ayuu rabbi qaab su'aala u weydiiyey insaanka: kayfa takfuruuna billaahi wa kuntum amwaatan faaxyaakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
saad u gaalowdaan baa alla rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala sayaad allah rabbigu u gaalowdaan adinkoo aan jirin wa kuntum amwaatan miina jirin xaggee la jiray oo qofku uu jiray intaan la abuurin ka hor allahu aclam laakiin qofku wuxuu soo maraa aslaab alaabaa arxaam alummahaat ibnu qayim raximah ullahu tacaala wuxuu yidhaahdaa qofku 5 marxaluu soo maraa insaanka ah marxalo kastana midda ka dambaysaa ka ballaaran kow qofku wuxuu soo galaa dhabarka aabbihii ayuu soo galaa aslaab alaabaa dhabarka aabada waa meel cidhiiriya waaye markaa ku xigana wuxuu galaa raxim alummahaat ama ilmagaleenka hooyada asna waa cidhiiri 2 sentimitir waa asaa laakiin ka waasicsan dhabarka aabbaha adduunku yimaadaa oo marka ballaaran markuu dhasho oo waasica ayuu yimaadaa marka afraadna waa dhintaa qabraa lagu aasaa barsakha ama nolosha barsakha la yidhaah ee u dhaxaysa aakhirada rasmiga iyo adduunka u dhaxaysa way ka ballaarantahay adduunka qofkii loo nicmeeyo kii la cadaabana dhib badan baa haysta waxaa ugu dambeeya marxalada 5aad oo ah soo bixitaanka qofku markuu soo baxo oo qiyaamaha la yimaado dee qiyaamaha qofkii rabbi u nicmeeyo jannatin carduha asamaawaatu waalardu cadaabkuna asna waa ballaaran yahay marka rabbi subxaanahu wa tacaala insaanku ugu amaal sheegay wuxuu leeyahay sidee saa u gaaloobaysaa miina jirin waa layna abuuray marka abuurista ama adduunka la joogo ayaa marxalada ugu muhiimsan marka oo ah marxalat alikhtibaar marxalada imtixaanka wey qofka la imtixaanayo insaanka oo noolaha ugu sarreeya ugu caqli badan alladii khalaqa almowta والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا برب سبحانه وتعالى الله ومدك أبوري جيريدا ينولش جيريدا مركلبتك والأبوري وسيدا النبي نوشك صلى الله عليه وسلم مركا أدون كل ماذا آخر الله صبح قيام اللي ماذا dadkii la xisaabiyo oo qaar janno loo diro qaar naar loo diro malagii waxa laga dhigayaa wan oo kala laga dhigay markaas la bareenayaa ha ma taqaaniin qofkiisa waa garan waa dhimashadii waa la bareen markaas la dhiin yaa ahlal jannati khuludun bila maut wa yaa ahlan naari khuludun bila maut ree jannow jannada ku jiraysaa mana dhimanaysaan ree naareedoo naarta ku jiraysaa mana dhimanaysaan qolan farax ayaa ka badan doona qolan naxdin ayaa ka badan doonta marxaladan marka nolosha ayaa ugu khatarsan marka qodobka ku xiga waxa weeyaan oo ah qofka diyaar garowga xagga aakhirada qofku inuu fahmo ama ka feejignaado adduunyadan uu joogo noloshan aan nooshay adduunyada la yiraahdo ee hadda aad joogtid ee ballaaran ee shahwaadka badan leh waxa la cuno waxa lagu labisto garanaysa meel la dego dareenkaaga shahwaaniga wax badan baa yaala meeshan oo qurux badan oo dhalaal badan oo indha sarcaad badan oo soo jiidanaya oo ku sirhaya Allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluhum ayyuhum ahsanu 'amala Allah wuxuu leeyahay dhulka waxa dul saaran qurux baan uga dhignay waa ku qurxinnay sooma oo maxaan u qurxinnay linabluhum ayyuhum ahsanu 'amala ha وتعدان سومرنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا تنوى محي أيانا وامتحان مركا أدونك مركا اللي تشوغو امتحان باللو تشوغا هو تشربادو ليس تشربها أيوه قف كيبا امتحان كاكا صوبيح دونا امتحان كالدنيا هدي كل عدو آخرة أدينا ماله عن صو آخرية إعادة عن مركا لقالا يمجرتو وصاو قول عضيوه أرقم حال الرباء أدونك إلا فهمه قرآنك إن بدن بكشيكيي فهم كأدونيا ذا فهمت أدونيا ذا محيطها
marqaar waa ku siraysaa been bay ku sheegaysaa waa isku qaadaysaa waa isku qurxinaysaa markaasaad ku sirmaysaa inaad joogaysaa moodaysaa adan weligaa dhimanayn markaasaad si kala noqonaysaa bal aayadan fiiri sida rabbi subxaanahu wa tacaala tacbiirka la siiyey sida loo ekaysiiyey inamaa mathalu xayaati dunyaa kamaain anzalnaahu min asamaa faاkhtalada bihi nabaatu اlardi mima yaakulu الnaasu walancaam alla wuxuu tusaale uga dhigay nolosha adduunyada roob cirka ka soo daay dhulka ku da'ay waxa dadku ay cunaan xooluhu ay cunaan xataa idaa akhadat ardu zukhrufaha wazayanat markii dhulkii qurux la bistay quruxda geedaha ka muuqda beeraha dooga ubaxa biyaha socda shalaalaadka wadanna ahluha annahum qaadiruuna calayha dadka ay dhahaa ilaah maantay aan ka fara qabsada ataahaa amruna leylan aw nahaara alla wuxuu leeyahay amarkana u yimid hamiina maalin fajcalnaa xasiida eber baa ka dhignay wax laga hoose oo kale ka lam taqna bilamsi shalay ma jirin oo kale inaysan jirin baad moodaysaa macna waa maxay adduunka markaa adi isfiirisid jirkaaga iyo quruxdaada muraayadda isku fiirisid iscajabisid caafimaadkaagu fiican yahay meeshaad degan tahay qurxoon tahay cunno fiican aa haysatid ayaa isku bogaysaa waxaa laga yaabaa bacda saacaad ama bacda ayaam jiraa imaanaysa ama waaba dhimanaysaaba sikadiisa jag waaba dhimantayba adigiiba wixii maba jiraanba kadalika nufasilu laayaati liqowmin yatafakkaruun buu rabbi yidhi aayadahaas waxaan u kala dhigdhignaa dadka fahmaya wax yaa marka rabbi subxaanahu wa tacaala aayado badan baa looga hadlay yaa ayuha annaasu ina wacda allaahi xaq ballanqaadka alla waa dhab aakhiraa jirta qiyaamaa jira xisaab baa jirta jannaa jirta naar baa jirta falaa taqurannakum alxayaatu اddunyaa walaa yaqurannakum billaahi alqaruur yaa adduunku ini sirin yaa adduunyadan waa dhowdaysa been inii sheegin yaan shaydaanku ini sirin shaydaanku wuxuu leeyahy waa noolaanaysaa dhiman maysa gabar yar baa tahay wiil yar baa tahay dhallinyaraa tahay duqaydaa dhimata islaamaha waaweyn baa dhinta odayaashaa dhinta adiga maya dhiman maysa waa beentiis waaye xilli kastaa lagu dhintaa xilli kastaa qofku ilaahay baa garanaya goorta la dhimanaayo marka waa maxay alla wuxuu leeyahay yaan adduunku ini sirin soo maaha shaydaan ayuusa ini sirin dadka aad u sira wamaa hadihi alxayaatu dunyaa ilaa lahun walacib waina addaara alaakhirata lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun rabbi subxaanahu wa tacaala adduunyadu waa cayaar wax lagu mashquulo ayaan la xoogaa lagu qaadqaato laakiin nolosha dhabtaa waina addaara alaakhirata lahiya alxayawaan nolosha dhabtahay waa aakhirada way low kaanuu yaclamuun hadday garanayaan dadku nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi saxaabada inna mimaa akhaafu calaykum min bacdi waxa aan kaga baqayo aniga gadaalkay waxaa ka mid a mimaa yuftahu calaykum min zahrati اddunyaa wa ziinatiha adduunka la inii furi doono xilligii nebigu noolaa sala allahu calayh wasalam duruuftu waa adkayd saxaabadu cidhiiri badan baa jiray laakiin wuxuu nebigu waxaan kaga baqayaa adduunyada laynku soo furi doono xadiis bukhaari muslim wariyeen حديث صحيح وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة الدنيا ومعان تهي ردنك حقي سوى معان تهي إنها حقي سوى دوق إنها كل دوق سدع مذهبك عقار هو عجائب بدنيه وإن الله مستخلفكم فيها رب سبحانه وتعالى أذن كان ما أنت تشوقه dad inka horreeyaa jiroo dhintay aan joogin aawa aabbaha ama awowga ama abkowga abuulanka aawey ayaydaa abootada aawey adaa maanta jooga soomaaliya waa dhintay ciidday ka hooseeyaan fayanduru kayfa tacmaluun saa bal iska eega saa u dhaqmaysaan fattaqu dunyaa wattaqu nisaa baa nebi yidhi sala allahu alayh wasalam adduunyada iska jira dumarkana ka feejignaada kuwa aan fiicnayn khatar way rawaahu muslim qofku markuu dhinto oo naftu ka baxdo
waxaa nebigu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam saddex baa raacda ahluhu wa maaluhu camaluhu ahalkiisii baa sagootay hebel waa dhintay hebelaayo waa dhimantay aan xabaalaha geyno waa la raacaya wa maaluhu hadduu baabuur lahaa baabuurkii waa lagu qaadin meydkii dadkii baa raaceen waa camalkiina waa raacaya laakiin markii qabriga la geliyo fayarjicu ithnaani wayabqaa macahu waaxid laba waa soo laabanhaya xoolihiina waa soo laabanhayaan ahalkiina waa soo laabanhayaan qof dhahaya qabrigaan la gelayaa heblaayo oo aan wehel yeelo ayaan la jooga ma jiro hadduu xaaskiisii ahayd iyo hadduu ninkeedii ahaa iyo hadduu wiil yahay iyo hadday gabadhii la dhalay tahay iyo wiil iyo waalid qofna qabri kula geli maayo waagaa dhalaysa kaligaa baa dhalatay haddana kaligaa baa lagu aasahayaa qofkii marka camalkiisiiba harahaya bas qodobka kale waxaan ku khatimahayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay aakhira markii la tago ninkii dadka ugu raaxa badnaa boqor buu ahaa maalqabeen buu ahaa reer boqor bay gabadhaan ahayd ama hooyadan maalqabeen bay ahayd qofkii ugu raaxa badnaa baa aakhira la keenayaa naarta hal mar luquusinahayaa waxaa la leeyahay weligaa khayr ma aragtay khayr maku soo maraya nicmo maya weligay ma arag weligay khayr ma arag kii waxaa la keenayaa adduunka ugu faqriga badnaa ugu dhibaatada badnaa oo dee hadduu hal mar waxela nasiib ay ahayd weligaa jannada la gelinaya kaa naartu galay weligaa ma aragtay baa leeyahy dhib iyo faqri maya ma arag weligay ma arag maku soo maray faqri iyo shidda maya ma arag weligay dhib ma arag waana dabeecadda basharka adiga waxaad fiirisaa maalan adoo intaa oo sano caafimaad qabay intaa oo sano ladnaa haddii madaxa lagaa qabto yataah baa bilaabaysaa tacbaan baanahay intii hore xusuusan maysid haddaad baahatid xusuusan maysid dharagtii hore saddex Soomaalidu waxay dhaheen caloole amaal malaba amaalaba shalay waa cuntay maba taqaanaba calooshu sadartii waxaa la rabaa qofka muslimka inuu ku tala galo oo adduunyada aysan sirin adduunku inuusan sirin qofka uusan ku daqmin baa la rabaa qofka muslimka ah qodobka labaad waxa weeyaan qofka muslimka waxaa laga rabaa asaaska camalka saalixa ama diyaargarowga aakhiradu waa niyada wanaagsan weeye النية الصالحة الصادقة إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى قفنا عمل كيس هجاجيو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة إخلاصك النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وهو إنما الأعمال بالنيات عملك والنية دوال qofku inuu khayrka niyeysto xumaanta iska ilaaliyo niyadu way ka fiican tahay camalka caadiga ah la sameeyo oo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay xadiidka muslim inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum ilaahi ma eega jirkiina ma dheer tahay ma gaaban tahay ma ciilan tahay ma caatoon tahay iyo musawirkaaga ma qurxoon tahay ma madowdahay ma caddahay maya walaakin yanzuru ila qulubikum ilaahi qulubtiinu eegahaya قلوبتنا على قلبي محا كجرا إخلاص alla dartii wanaag daacad baa ku jira qalbigaaga waa la eegaya niyadu marka qofka niyadiisa waa laga abaalmariyo waxa nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam qofka hadduu khayr niyeysto oo khayrka awoodi waayo waa loo qoraya man hamma bi hasanatin qofka hasanu niyeystay inuu wanaag sameeyo niyeystay ma sameeyinba ma suurtobin waa loo qoraya hadduu sameeyo xasanaad 10 goor baa loo laabaya ya ka badanba waa loo laabaya hadduu xumaan hamiyo uusan sameyn oo ilaahay dartiisa ka daayo ajar buu helaya hadduu sameeyo xumaanta hal mid ah loo qoraya soo ma jeedin quraanka wax badan waxa rabbi ka cabiray subhanahu wa ta'ala niyada al-irada ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قفك عمل كيس إلهي درتي ولجيدا آخرة ولجيدا إلهي درتي وعمل دوا صالح آخرة كوها بون سمية مؤمنة عمل كيس ولا أقبلها يا قضبك أفراد حويان قفك وإنه هرت واجباتك إلى اليوم فرائد إنه إلى اليوم قفك إنه واجباتك إلى اليوم horta sunnadu haba dambaysee horta waajibka la imo oo qof salaad oo kale mesela waa waajib
وين إلى لسا صومك واجب كاها صومها وين صومتا محان كرادا عورada هذه jirkaaga xijaabka waa waajib Soomaha aday cid ninkaaga asaguna ay haweentiisa iyo ilmihiisa tarbiyo wanaagsan si fiican la dhaqmo xaqa waalidka iyo waalidka xaqiisa in la ilaaliyo muslimka xaqiisa in la ilaaliyo qofku xalaasha inuu cuno xaraamta iska ilaaliyo waxyaalaha waajibka qofku inuu la yimaado way wanaag wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam حديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أدون كي يقوم الدواده وحان كتشعلهي وحان كفرد يعني لي ماذا وعمل قفك السماية وحو ناقصا واجب كرتن لي ماذا سنة قدره سيد النبي نوشك صلى الله عليه وسلم قفك آخر مركو تقول صلاة وهرسي صلاة فرضك على حسابها صلاة فرضك هذي وحكد مان وحلي سنة ما كدر ومتو كذا سر الله ما يسترو حقوق الله صلاة وهرسة حق ضدك نقف دي جلي ما وهرية ما قف دلي ما قف دقري أيها الحسابنا هي مركب حال ربقك مسلم كاه هرت واجبات كالله يمو فرض كالله يمو حرام تنسكيل هالي والله بضاس افعل سماه وواجب لا يمو وهذا ودي ويدي فاتقوا الله ما صدعتم واي حرام ناس كبدابه كديرو صوما معناها سوا محي قف مسلم كا وينو برتا وحيالها لغا ربا اسغا احكام تلغا ربو سيبا دمرك وحيالها كسابسن حواشودا غاركا اني برتان واي قفو جهلي كبخو او دينتي سبرتا يا قفك لغا ربا marka waajibaadka in lagu dadaalo nabiga sallallahu alayhi wasallam sida waajibaadka nabigu suu taagnaa salaatul leel ba lagu hibarareen markaas Aisha u naxday waqtiga rasuulullaahi maxaa ila damgaaga waa dhaafkii hore kii dambe maxaa isku dhibaysaa afala akuna abdan shakura nabiga sallallahu alayhi wasallam ma hana adu ilaahay ku shukriya قف مؤمن كمرك محل لقى ربا إنه يقف وناقسن إيمانك السحوق اللي هي كده على خير كي وناق ها ومرك التي مهدد واجباتك سنة دينا قدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير مؤمن كحوق إيمانك السحوق اللي يا جهادك وناق وحوق بدن أيها كخير إلى أجلس اللي جت عليه مثل ضعيف كلنا خير باكوجرة كل أهل خير ومؤمنين احرص على ما ينفعك واستعن بالله ويحكوا أنفع يكون دال الله قال ما يسوى ولا تعجزها عجز ها كسر كي وهسيد اسكده صوما هدي وحكوا عنا واحد هذا قدر الله ما شاء فعل هديهن لو أني فعلت كذا وكذا لكان هديهن واحد هذا قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان مركا قدام كاس حويان قف إنه كده داله فرائد إنه كده داله واجبات ورأس مال واجباته وحي اللي ودري أو اللي أمر واجب السماء وحي لقى ربنا إسكدا بريها رنتي هذا موضة دمرك الصوماليات أهل خيرك waxaa muuqda xijaabku inuu xoogaa la fuudeynay waayahan ama bal iska dhigay dadka qaarkii oo sideedaba qofku kuma xaragoodo jirkaaga laguma xaragoodo dhar baa lagu xaragoodaa Soomaa ee jirka laguma xaragoodo marka in bal xijaabka waayahan la fuudeynayo garbasaar yar oo maaratay la fuudeynayo oo in balaad gabdhahana ka waanisaan oo u sheegtaan qofku inuu qarsado cawradiisa inuu qariyo waa waajib asagana sharaf u tahay bal taana inaad haweenkiina ducaada ahlu khayrka aad gabdhaha ku waanisaan kuwa dhasheen kuwa in la dhashay kuwa muslimka waa la fuudeynaya dada waa gaala lagu dhex jiraa dad baa la nool yahay si qaqaawan oo sida maartay xoolihiis kaga nool in lagu dayda maaha muslim baa ilaahay ka dhigay qiimo ku yeelay
sharaftaada ilaalso waa marka waa khatar arrintaas qodobka shanaad waxa weeyaan diyaar garowga in toobada la badiyo toobada al-istighfar in la badiyo wa tuubu ila allahi jamii'an ayyuha al-mu'minuuna la'allakum tuflixuun wa amr ilaahi alla u soo laabta dhammaantiin mu'miniinay waa liibaanaysaa qofku quraankan aad uga buuxdaa istighfaarta iyo is-amraayo qofku waa dambaabaya bini aadamka kullu bini aadam khata in qofku marka soo laabto dunuubta laga soo laabto qofku isla xisaabtamo saa guriga ka soo baxday magaalada u soo baxday madrasa soo aaday shaqa soo aaday dukaankaaga furatay duhur baa galay casr baa galay maghrib ciisha guriga waa ku laabatay hay xogaa is xisaabi hadii khayr ay hesha alxamdulillah wixii dambi alla uga cafidhay ka toobadkeen dadka waliba salaatu leelka tukada xilliga dama soo kaca xilliga istighfar ducada waa la aqbalaa allana waa amaana dadka noocaasa wabil ashaari hum yastaghfiruun wal mustaghfiriina bil ashaar kuwa aroortii toobad keena qofka caawa dhan tukanay salaatu leel ku jiray markii waagu soo dhow yahay buu istighfar bilaabay astaghfirullah rabbi ighfir li wa tub alayya allahumma ighfir li buu bilaabay qofkan الله كأقبل يا سبحانه وتعالى وين أسكور قبتها بين هذا ما توادم بضمتهاي قفوا إنه كتوبت كان ذنوب تيسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لو حديث باجنا من نوح لي النبي صلى الله عليه وسلم توضبات تنقر كبضا بإله ما لنتي استغفار ودي سنجري نوح لي بقول قور وتوبت كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم يا بخاري لو حديثك الأولية ولو صحيح نبي بقول قرب ومالنتي إلهي وتوبت كينيجر أما إن كبدا تضواتر بقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه أنا معات هاي عالم كان كنا لنا فتنة ذكية إنها مركب ميل بافرين سا وحبا أركس دنبي دقوا وحبا مقلاي قفكم مركب إنه كتوبت كان ذنوب تيسا أو إسكور قبوه رب سبحانه وتعالى توبة وأقبله لكن لما قر توبة لما أقبله قرأت مركي كسب هذا حقان قرنس دون كل ماضو يقولكم النفط هل كان اعتماده سكرات ونقضوا يصير هذا مركان نولان ما يصير غرغرة مرة لما أقبله توبنا إلهي درتي كاتها إخلاص وين شروطي وضعتها ذنبك فرح كقاضى كشل ليذا كقوم ميسا قرنسا إن هذا نقول من أن يستا حق بني آدم كأسكعلسا ويحب بني آدم حقه وليه وبني آدم وين أسكعل حق بني آدم حانتا إن الأسكعل عليه وآذو بدن يسكو دركا ونمامض إن الأسكعل عليه قالوا كل حدا حويان قلبك إلا قور قبوه قلبك قفك قلبك إلا حكمه قلبك وبقر كجيركا إن قلبك إلا قور قبوه مرك وقلبك كور قبت حبان بقلبك صوم مرهية لكن وحي كدك قلبك وكون فكرتيد قلبك مركا وحولي هي الباب ولا قال قلبك عندها دقها عربك قعنتا محانكور هذا وحل أوريو حواستا درمياشا قفك وليه هي شنتا قلبك هل كانوا كجرا لفا كسرية لما أركه لكن الباب بدأ بالغ على قلبي وحا في رسيد إيشو وحا لهذا هي كاميرا لهذا إيشو وفتينك وحكو أركتا مركا وحا في رسو ومصورة إيشو قلبي وجود بنسي وحاس وحا روانا هذه وحبات دقيسانسا ومقليسا قلبي وجود بهيان مسكحة يقلها يعني مسكحة بترجمة السبع صوماها وحبات تاوانيسا وحا تابتي وحيهين وقلبك يقود بيسا وحبا أورنسا عرف وحن عرفونين وهوس يقود بيسا وحا كو هذا الشد هذا الفيعان هذا الحن قلبك وقلها حال رابرك قفكو إنه يحمنيس إلى عليه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا بال كانوا لكم امتحانا يوم موبايلك اللي يرادوا وأنكم امتحاننا وفتنا وين أصلا إن لقى فيتشين هذا ووحي خير لو أديكسن وحمانتان لو أديكسن وقت إن هوذا بلايا كبحذا قال وسخية هوذا
ولو Soomaaliya waxay yaab ku leeyihiin dad aan fiicnayn oo aan isleeyahay dadkaas ma fiyooba ayaa hawada ka hadla rag iyo dumar waxay ku hadlayaan ma taqaan walow dumarka qaarkii de waxba si ka ah ma aqaan ku dhalay aaway waalidkooda aaway ma qabsadaan ma cishadaan aw tolkoodii qabaa'ilkoodii yaa wiilashan waalan dadka isku dirahaya waxay rabaan ku hadlahaya ciyaal suuqa maal cishado qofku marka inuu iska ilaaliyo waxaan hawada ka buuxa wax fiican ka dhageyso khayr baa ku jira duruus baa ku jirta muhaadaraad baa ku jira danaha lagu qabsadaa laakiin waxaan antara baqashka ee ka buuxa Soomaa in la iska ilaaliyo ya nabi wuxuu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam qalbigu hadduu tooso qalbigu jirku waa toosaya ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب النبي صلى الله عليه وسلم حمين بقى كمية شركة عدير أيها كمية هذا توستو إيمان بقى كبوح سمي الله كعبسة كبوحة وناك بقى كبوحة مسلم جعل كبا كبوحة نعيب كحمانتا يا قالضا يا شرطا يا منكركا خير بقى كبوحة شركنا وتوسعية هادو قلبك فساده أو إندي بحمان سوقد بيه حمان بعد دعوت قلبك جلسة صوما ده حمان بعد جيستي هس يوحنا لاقوم بعد جيستي قلبك جلها يا صوما ها نينا جنبيها سلامتك هاي قعنت هذا قبتها هي والسلامتنا هي واسنا هاي يا واحد الحين باكو هذا شافع عينين عي لعنت يوحباكو هذا شيء قلبك جلسة مسكح هذا marka qofkii qalbigiisu hagaago yaa jirkiisu waa toosaya indhii baa toosaya lugii baa toosaya gacmihii baa toosaya carabka wax fiican ku hadlaaya hadaarta qof xumaan ku hadlaaya qalbigiisa xumaan ku jirta waxaan kaloo kula dardaarmay hooyooyinka ilmaha yaryarka ayaan la fasaadinin waxa fasaadiya aqliga dadka beenta fasaadisa beenta ilmaha loo sheegayo oo lagu korinayo iyo qusacbalaadka ama marka qaar ilmaha bahalkan loo fasaxayo mobilka loo fasaxayo iyo TV al macna lahayn aan tarabaqasha ilmaha maskaxdooda galisa waxaas ilmaha loo sheekeeyaa nabiga sallallahu alayhi wasallam siiradii saxaabada radiyallahu anhum malaa'ikta jannada ahlu khayrka wanaaga ayaa looga sheekeeyaa si maskaxdooda khayr u korto laakiin marka aan tarabaqash ka buuxsi gabriel aan daris ahayn shan jir ahayda umaleena oo ay tabasa arka ayo ay tabasa wax un bay sheegaysaa aan wanaagsanayn waa u yeeray adeer yaa ku baray hooy ay bartay tiri macnaha ma fahmaysan hooy ka maqashay hooy ay tabasay maqashay marka hooyana waa hooy macaan hooyana waxa tira waa khayr wixii bay qabatay marka wixii bay qabatay saa darteed fiir nabiga sallallahu alayhi wasallam salaam buu arkay haween ilma leh waxaan ku siinayaa nabi wuxuu yiri ma siinaysaa haddaadan siin buu yiri waxa aad u ballan qaaday been baa lagu qoraya ma been looma sheego been looma ballan qaado ha tarbiyada ilmaha waa asaasi hooyada u ah iyada aan qarinaysa iyada korinaysa iyada wax baraysa waa in ilmaha been lagu korin oo been loo sheegin maskaxda xumaan aysan gelin qabyaaladda iyo waxa isdagaalay iyo balaayada isdhacayb Soomaaliya ilmaha loogama sheekeeyo yaa looga sheekeeyay wanaaga uga sheekeeya Soomaalida hore iyo dadkii wanaagsanaa iyo Axmed Gure iyo dadkii halgami jiray sida Cabdullah Xasan iyo jihaadkii iyo khayrkii iyo culumadii soo martay wadanka dadkii wanaagsanaa uga sheekeeya laakiin aan tarbaqash iyo reehbel iyo kada iyo nacayb yaa ilmaha lagu beerin yaan xumaan looga sheekeynin yaan baroni lagu mashquulin ilmaha iyo waxaan macna lahayn oo qalbigooda hal la ilaaliyo qofka toddobaad wuxuu yahay oo qofka laga rabo aakhir inuu ku tala galo qofku inuu ku tala galo amal saalix oo ka hara asaga waa dhimanaysaa waarmaysid maxaa la yiri warha ka haro qofka raad baa ka hara markuu dhinto maxaa ka hari doona maxaa lagu xusuusan doonaa maxaa adduunka uga tagtay maxaa khayraho samaysay ha wayna khayr ka tagtaa خير الوحصة لغاربة أو أضطها وتكتب نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة حديث قف قد انتهينا آدمي عمل كسواقه إلا صدح ما هنا
صدقة جارية وحقفكم صدقة جارية لبحي مساجد عيل اسبيتال وضو حرون أقومها قبلها ظروفي سنة أما قروة أما القد انت قوري لوردسو خوفك خير بكشة وناك بسمية صدقة جارية وكتغي وحاجر وحيالان صومالي أقول ولا وقفك وصدقة جارية أنه أوقاف من نغان وقف وحوي وقف كان قرقان كانوا لسايا دولة 8 دبق وحليه ووقف وحي كصوب حاوانتا إسكاليه ما قبلها أما لقد انت أما الله فراق رباضها إسكاليه هلقوا بيلو أقوانتا إسكاليه حيرت علمك برانيسا أو دينك برانيسا حديثك فقهك آية قرآن كتفسير آية إسكاليه هلا سي صوماها meel buu tagayaa oo leey ceel uu ka qoday ceel dadku ay ka cabaan biyaha ma isbitaal buu dhisayaa qofkaani dadka lagu daaweeyo ha hooyada iyo caruurta iyo dadka lagu daaweeyo dhisayaa ha akhiru aad ajar ma u soconay waqf beeraan muslimiintu wala aqoon jiray Uthman ibn Affan radiyallahu anhu hadda oo saxaabiga waa garanaysaan oo qaaftiisi hadda Madiina ku taala magaalada Madiina ku taala oo qaaftu waqfay ayaa hadda ku taala 1400 sano ka badan waa سوما قف مركا إنه كتّا عمل صالحة صدقة جارية سوما أو مركو أنت وصعنيسا ها وين هذا حمان كتين وحالي را حمان تحمان حمان وحنتاي لكن حمان وحيكون في عانت إنا لدي متأذية مركا لدي متهلا واي حمانتي لكن حمان كاهر سكورا أما هذا واحد مصيب نقطبة قفك وحمان بسكدوا بها واد انت هوذا كنت تسأل لغة صار يا هوذا ويل كان صوح مان كو الله سقجانما كو الله gabadha iyadoo isqaawiso jirkeed banaan keentay hore u socota gadaal u socota is ruuxaysa ayaa hawada ku jirta waa dhibatay yaa ka saaraya see looga saaraya xumaantan xumaan baa ku hadashay ama xumaan baa ka shaqaysaba marka maxaa la rabaa amal saalix ka tahay sadaqa jaariya aw ilm yuntafa bihi dadkii wanaaga cilmi baa bartay quraanka dadkii bartay xadiis baa bartay waxaan ku raahdaa تفسير بعض برتي علم ذاتك أنفع يا برتي عارف ما بعض برتي دخترت بعض هاي دختر با علم ذاتك أنفع يا برتي خير باك الشقيسي علم ينتفع به علم الشريعة هذا كادونك احترين ولو بهاي هي ولد صالح يدعو له علم الصالح يسود دعينا هي ولد صالح يدعو له الموانا سنة يسود دعينا هي ilmaha la dhalahayo ee lagu rafaadayo ee nafta la ag dhigayo hadaysan saalix noqon maxay ku tarayaan adiga maxaa ka faa'iideysa adigu aad gaboobaysa waa dhimanaysa Soomaa hay hadaysan fiicnayn adna ku rafaada ayakana rafaadaba maxaa la marka tarbiyada hoosa ka soo bilaabanaysa wala saalix yad'u lahu ay ka bilaabataa koow marka hooyo la dooranayo ama aabba la dooranayo is doorashada koobaad gabar wanaagsan wiil wanaagsan la isku dooro hadhow la iska ilaaliyo aroosada xumaanta ee munkarka laga ilaaliyo iyo tumashada qofka cayaarka laga ilaaliyo xaraam ilmaha aan la siino xaraam lagu korin tarbiyada waxay u baahan tahay muxaadaraade waladun saalih yad'u lahu wa ku soo ducaynay ducays waa lagu aqbalaya allah hooyada una xariiso allah aabahay una xariiso sadaqo ku soo bixinaya maxaa la rabaa marka qofku inuu ku tala galo inuu reebo oo ka tago raad wanaagsan dadka ku soo ducaynaya waxaa nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam dadku markay dhintaan waa labo sahih muslim mustarih minhu qof raaxaysta iyo mid laga raaxaysto qof raaxaysta adduunkan iyo dhibkiisii iyo rafaadkiisii iyo bil buruntii bil raadintii iyo binaadaq buuqiisii iyo doodii iyo jiradii iyo baahidii iyo wixii waa ka dhintay qofkan waa raaxaystay jannu aad mustarih minhu dadka ka nastay dadka iyo geedaha iyo darbiyada يا حيوان كأننا صنايع مركي وحلي هبل بعد أنت إلهي كعذاب إلهي النار تكوف كيبا الله هبل يا دمت الشيطان هبل بعد أنت الشيطان إلهي كعذاب ولا غنى صنايع هبل بعد أنت الله نحري هبل يا مية قبضي الله نحري سهبل هبل يا الله خيرتي الله نحريس الله وشنة الله محي درس وفي عنيد الله محي أيضا بطنيد الله محي دبي رايد الله محي صدقة بدنيد الله محي دتك ورونيد قرابة واحتري جرتي الله قبضنا شنة باللي لو ذا بيت بنقول سامك هدمت لو ذا مد أي سيد النبي صلى الله عليه وسلم مر محل روا وحكوا تلقى شاء
haddaad dhimatid in khayr kaa dambeeyo khayr kaa haro xumaanta iska ilaali xumaanta iska ilaali qodobka saddexaad waxaa weeyaan qofku inuu isxisaabiyo naftiisa xisaabiyo muxaasabata nafsi naftaada ka warqab yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsu maa qadamat ligad واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون هاي حولي ربي إلهي كعب صدر دور صدر حمان تسكيل عليه برينا بري واحد نفكست واحد بري أي أهر مرستها إيكتو ها هالمامنين ربي هذا هالماندي ربي أباس هالمامي نسوا الله فأنساهم أنفسهم ربي محاذو قوانا سادو ما كلتها هذه هبلاية أما هبلة إن لو تبهي ولا أديك اسكم توصلنا فاطمة كم مقنا عائشة كم مقنا عيسى كم مقنا يقول عندما كنت بين إلا تبين مجرين هو يا عباد ذلك الله صباح حي هبلاية على فاطمة لا يرى عيسى لا يرى هذا اللي متنا دور بري ولا عنا حياة ثم بري ملاص بال أفر بلوز كسوق اللي بلوز وصراد هذه حولي ولا قيب سنة يا ولا دحلنا يا هذه أنا عيدها كوسيسا حولها كودر سعونها خلاص عندك تبي سمال إما سما ما لك سود دوغنا حقا ولا كان هبل بعد انت يا الله هبل لا يعني الله ونحرس والولو بابا خلاص قولوا يا عيد كلام اسك دغيسبا هوانت نين كلا دمالaya ninkii haweenku isku guursanaya ilmahaagi kulli ma salaam an ciida ka hooseysa hal ra marka qofku inuu xisaabiyo muhaasabata nafsi oo naftiisa ka war oo halmaamin oo qabriga marka gashid an waa ku bariin mar rabbuka ربك أنا ما أنا ورا أنا مشغول بأنا هذا أنا بشو مشغول صناعي حاجة إسكافيري حاجة إسكافيري حاجة فيري اللي بدنا يرى ما ركت نبتة مشغول كويه نبتة مش حبرين عم إسكافيري نسا حبرين عم إسكافيري نيا تميه مشغول كويه حاجة مشغول كويه ها موضع صباح هذا واحد اللي يرى هذا مع صباحي مشغول بالويه دركا أنت سكر النوع كذا كذا مشغول كاس قفكو وين نطلع حساب السماحة وانا أقول سميسي معاه حمان كاد عايز كورقب قضك مسجال هذا حويان صحبة الصالحين إن دتك في عنا لا صاحبه قفك بنام وقار معها دور شوقنا معها قفك ضد ولا صاحبها يا ضد ولا صعونها يا ضد بي وشاكي سنة يا وين ضد في عن نقضان والدك على قربها المها ضد في عن الدورة الماء سكول دكتان مدرسة آذان مساجد بآذان يي لا سocdaa wayna ogaata inanta dhashay yey la socotaa yey saaxiib la tahay ha ka warqab soma waani u sheeg wax qof fiican la saaxiib leh qof kaali taa la saaxiib wiilkaagu yuu la socdaa yuu la saaxiib yahay ha marka qaar dadka fiican waxay sameeyaan dad fiican baa loo dooraa ilmahaaga daris fiican guri fiican meesha dagaysid وين دفع عند جين الجار قبل الدار بعربت هذا أنت هذا الميل دقن درس كسكفير بالي سوما مرقار إنها وحلو دورة ضد في عن ما عنده ويل كان ويل في عنه درسها شريعة ما قرابة ويل كان سبرت إسراع مساعدك هذا وأنا ما عندي قبر في عنه دين تبرته وأنا سبرته لكن هذه قبر هذه قفح الله صاحبك والله منها قفك والله منها يا سوما النبي قال صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه حاليا النبي الله نفط هذا كحبس أو لتشو ضدك إلهي عابد الصبح يا قلب إلهي بريكوا لتشو وإلهي درتي أكتها كوا حالي هضاف النبي قال صلى الله عليه وسلم وحال ربا قفك لسه حيبس قفي عنها هذا قفي عنها هذا وحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوها المرء على دينه خليله فلينظر أحدكم من يخالل أبو داود يوري حديث صحيح هو قفك وحوها يستا صاحبك دين تيسا قفك الله صاحبه يحسك ايغو درسك وكمد مركب سبحانه وحيران درسك دين تيسا كويل أنا دقن كيسا كويل ودرسك مرنا كدين مرنا كودايو مرنا كدرنو درسك سما درسك دينتي كويه مر كودين الله وركواري محي سمين هيان درس كان الله افحم هاي المهود وركواري محي هايان مرنا كودايو اكو داير سوا درسك سما المي لا عيار يا سما
marna ku diin marna ku dayo marna ka darnow lagaa bare oo lagaa badi bay noqonaysaa waa ka badinaysaa waa ka dheeraynaysaa ibliis moogtan ibliis laftigiisu moogta ibliis dad waxaa jira ka dheereeyay soo ma ogdiin abaalis waa ka dheereeyeenba ibliis baa la yaabay ibliis acuud billahi minha acuud war kuwaan maxay ahaayeen waa iga dheereeyeene ibliis baa la yaabay go'de ibliis ka dheereeyay oo meel wuxuu ku fakaraya abaalis noqdeen soo maaha marka maxaa la rabaa saaxiibka saaxiib fiican maxaa nabiga sallallahu alayhi wasallam almar'u ma'a man ahabba qofku wuxuu la jirayaa qiyaamo qofku jeclaado la jirayaa almar'u ma'a man ahabba qofku jecel yahay qofku ayuu la jirayaa di saxiixa way nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tusaale ku bixiyay qofka wanaagsan qofka la saaxiiba iyo qof xun qof la saaxiiba nabigu tusaale ka bixiyay wuxuu qofka fiican qofka la saaxiiba wuxuu la mid yahay qof soo galay meel catar loo gado catar ama catar sita catar iyo baraafuun iyo xaamil miski ama waa ku siinhayaa hadii ku siinhayaa ama waa ka iibsanaysaa ama caraf baa ka helaysaa caraf udug baa ka helaysaa midka xunna waa maxay wuxuu la mid yahay kuwan maartay kabaha tola ama biraha tuma oo baxbuufiya oo maartay ama maradu ka gubahaya ama qarboon baad ka helaysaa waxaan udgoonayn baa ka helaysaa soo ma jeed qofka aan fiicnayn xadiis saxiix ah bukhari muslim wariyay maxaa la rabaa marka qof in dad fiican la saaxiibo oo ilmaha loo dooro dadka haday xumaan ku hadlayaan waa laga tagaa meesha laga istaago wala iska tagaa ay war iska daaya degaajada waa laga tagaa nabiga waxa la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam nin baa dad jeclaanaya ninka waa tusaale dumarku waa la mid dad uu jeclaanaya laakiin dadkii ma aragba wuxuu jeclaaday nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadu jecel yahay wiil yar baa waxa la yiri maxaa rabtaa inaad noqotid waa wiil yar Soomaali ah سيروا إن السحاب نقدان ربابير هذا هو فرصة ما حاربت أن نقطة ماندو إن السحاب نقدان ربابير مع الناس فاهم حي هو يدي وهو يفي عنا هيدي سحابة ده وش كيسي سحابة وجعل هذا مركب ما يقال السحاب يقولوا يا النبي هو اللي تشوي أو أيدنتين ورا ما هيو ما حاربت أن نقطة إن السحاب نقول ما ربابير والفي عمبوها معنا سحابة وجعل هذا هو يا وش كيسي عمر وش كيسي أبو بكر الباب الأولى ولي موت Soomaaliya hore oo aan diinta aqoon dhagdheer iyo caraweele iyo oday biiqay wax la qoom ka sheekan jireen moogta waxaas lama rabo ama waxaan xunka hadda oo ciyaarka loogu sheekeeyo maartay maxaa leh Tom and Jerry ma leeyahay maxay baa ciyaarka daawada maxaa magaciisa Tom and Jerry ma jirino waxaas lama rabo waxaas lama rabo oo gaalada kartoonada gaalada ilmaha daawadaan ma wax fiican jira ilmaha wada loo dooro ilmaha maartay haloo dooro marka nabi muxuu sallallahu alayhi wasallam ninka weydiiyay qofkan dad uu jeclaada mana arag mana gaari karo waxa nabi yiri al mar'u ma'a man ahabba dadku jeclaado la jira waxaan jeclahay nabi sallallahu alayhi wasallam sama saxaabadan jecelnahay ma gaari karno laakiin waxaan jecelnahay insha Allah ilaahay inuu maartay naga daba geeyo ilaahay idinkiis ay aan ka mid noqono oo jannada aan la galnaan rajaynayna المرء مع من أحب قضاء طبنا ذو حويان وقف ديار جروج آخرة حسك موت كإلا بديه الإكثار من ذكر الموت إلا بديه حسك جيريدة قفلوا سن جيريدة سلمانسين جيريدة وعرب هاي سلمانسين كل نفس ذائقة الموت وين ما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هاي سلمانسين وإيمانسا وحان النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من اللذات أكثروا من ذكر هذه من اللذات وحاب ديسان مدك قوية مع عيالك بأن النبي ربضي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من اللذات أو كما قال صلى الله عليه وسلم معناها دي مشضة بدية حس كذا بدية النبي صلى الله عليه وسلم تسالوا سميه نبي حرقين من نبي وحسبيه حرقين مربع ما فرقيس أيو سميه
nebigu sal allahu alay wasalam tusaalaha markaasuu ka saaray khad buu ka saaray bannaanka u saaray dhinacyadana xariiq buu ka sameeyey nebigu sal allahu alayh wasalam macnuhu waa maxay qofkan waxaa ku wareegsan ajalkiisii laakiin amalka iyo wuxuu rabo iyo waxa uu maskaxdiisa ku jira cimrigiisa waa ka badan yahay dhinacyadana waxaa ku yaalla wixii ku dhici lahaa jiro hargab baa ku dhacay waa jiradii caloosha laga qabtay kadaa lug baa jabtay gacan buu ka dhaawacay qofkii ajashu marka ma la dhaafi karo soo ma waxa aad adiga tamaninaysid ma gaari kartid maxaa la rabaa marka qofku inuu xusuusan yahay inuu qofku xusuusan yahay geerida oo xuska geerida qofku markasta maskaxdiisa ay ku jirto ها عاود ساحة مسوتو سيسا سادرت النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده النبي صلى الله عليه وسلم قف مسلمة حق ماله وحو دردار ما هيسته لبها من وصيحده إلا وانه دردارن كسو قرطاء حديث كنك وري وابن عمر واي حديث ابن عمر باوري وحوري همين كستا هدو يصومر همين كستوا dardaaranka waa quraaniga dardaarankan qortaa amiin kasta xoolahayga kada waxayga qofku inuu marka qofku waxa weey iska warqabo oo geerida xusuusan yahay oo nabi sallallahu alayhi wasallam ibn umar buu xadiidka la hadlay nabi garbu qabtay sallallahu alayhi wasallam kun fi dunya kaanaka qariib aw aabir sabiil fi adduunka hadaa joogtid nin aan meel uusan garanayn oo qariib ku yahay ama musaafir oo wada goynayo kala noqo هذا جوتي مقالة دجنين نقوليها كذي سنة أما مسافر بعطيه جاري ديارة ده مالكو حقتي ترسد أما جاري مالكو يستاجي بيع وحبال لقى حبال حال قبنا ولا قصعدا إنه ما روح يورنش المركة هذا قلبتي جارتي صبح جاري صحيح سديهن هذا صبح جارتي نقربها سوينه عافمات كفى يديسو جرده وقفى يديسو نولش هذا جريده وقفى يديسو حال رمركة وحنيري qofku inuu markasta geerida xusuusan yahay hebel baa dhintay saaxiibka qaraabada ahalkaagi wayna ku tala gashaa qodobka bitoonaad wuxuu yahay qofku inuu ku dadaalo khaatamada ama inuu meel fiican ku dhinto qofku inuu meel fiican qofku ku dhinto xusn khaatam xusn khitaam inuu ku dhinto qofku oo amalku waxa laga fiirinayaa inama al-a'malu bil khawatim ha qofku inuu meel fiican ku dhinto inuu ku dadaalo macnaheedu waa maxay qofku inuu iska ilaaliyo xumaanta way ilaahay cimrigu siiyay cimrigaaga xumaanaha ku dhamaynin qolada ahlu naarka ayaa qayliyay rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ilahu naarta naga saar amal fiican ma soo sameeyna awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar oo idinku caruur ma leeyni dilay والصغيرة مايا ما والنا إذا مايا أصلا عمر لينا مسين قفوا كوا أنا قاعدن كرها الماذا قال بينوا ولحدا سنة قارس دي 8 سنة قارا فرتن سنة لكن نقول إحنا نوشة صلى الله عليه وسلم قف لحدا قاري إله العردار ومرهبين أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة حديث البخاري إله من المرسية واقو يقف لحدا قاري وعروض اسكدغ هيا اما عيال سوق مسقجانا حمان ورد هيا لخدنا مر هيا لخدن قف عردار ما هيستو حلو وجه عردار هيا لخدن جير كوخا عيارها تاغيره انا كوخ بلان تاغيره يقول لخدن جير عيال حافظيده اما اسلام وين لخدن غارتاس وكلا قف لخدن غاري ما و دمن عبدان وما هرين سوما marka qofku inuu ku dadaalo إن خات ملفع عنه كل أنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه أدون كسوى حلقوس وصارا وحو كل انتي أدو تكن يا دمنتي أدو قرآن آخرنا هيا أدو وردين هيا أدو خير عشاء تكتي وورد سواسي حتى هاي وحا كل متى لقوس وصار هيا أما أدو حفلتك بودبودها يا دمنتي ونيكين هيا يا أدو حفلتك بودبودها هيا يا دمنتي إمسا كل دمنتي igu xabelada u socda niika u socda gaariga la gadoomay naftii ka dhacday waa lagu soo bixinayaa marka macnuhu waa maxay is-ilaali yaa ayuha alladhina aamanu taqullaha haqqa tuqaati wa la tamuutunna illa wa antum muslimuun
نبينا صلى الله عليه وسلم وحبدين جري مركي سودا ويدجرديسو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بونك بدين جري صلى الله عليه وسلم ها وحقول الرب قفك مسلم إنه بدي حسك إلهي إنه بديه حسك إلهي إنه بديس سام ملف عن وجود من تلاقي قوة فاذكروني أذكركم الهير يحس وين حس هياي ها واذكروا الله لعلكم تفلحون وارثا في سورة الأحزاب تبصفوا يا إلهي شيء وذلك وناسنا إليهن رجع دمربا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما محاكو جنا مركة والذاكرين الله كثيرا كو إلهي إن بدن حسجة والذاكرات دو مركة ها مركة إلهي إن بدن الحسن ها كلمات عجائب وحكمنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم وخفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن بالنبي صلى الله عليه وسلم والله ما يرى عرب كفض ميزان قال لك علوس ميزان كآخره ربنا اجعلها الرحمن كنا اجعلها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله النبي صلى الله عليه وسلم قفك حسن ربي قفك كان حسن تسالك بحي قفك ربي حسن وحيري وقف نول أو كله كان حسن وقف دنتي أو كله قريها ربي اللي حسه قري ربي اللي حسه وقري نول خير قرآن باللغو أخريا صلاة الليل باللغو كذا خير كان لغو سكفرا إلما وناس وحفا يقول خير باللغو هين عاود موسيقى باكشدن قف كسب موبايل بهوس وجهه وحنا مداونا يا قول خير لما شيطان ما دقي ماشاس سمعوا الشيطان كواركتانو قرقة مركها منك اللي سوق لها هذا بسم الله اللي سوق لين شيطان كوا سوق لها هذا عشان بسم الله الله دينه حليه يا صاحبي شيل وراه هلو هي عشان وهاي سنة شيفنا وهاي سنة هذه شقك الله قالوا بس اللي لو بنا شقاد وحكا قبنا يا خطر عظيم مرك محل رواح حسك إلهي لبضيو إلهي باك حسه سبحانه وتعالى وكتوسين يا رب سبحانه وتعالى وحديث كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم حيري الله يري حديث قصي أنا عند ظن عبدي بي أنا وحنا هيسلا دونكيغو إيغا ملايستو وأنا معه إذا ذكرني هدو حسنا ولا جرا فإن ذكرني في نفسي وذكرته في نفسي هدو كلي يحسه أنا وحسها يا وإن ذكرني في ملايين ذكرت في ملايين خير منهم هذا يقول حسن جماعنا أنا جماعك في عن ملايين كده شيء يا رب الله سبحانه وتعالى بروح حسك رب الله بدي وعنكو ختم هنا قيب لبي توناد قدام بيسا قف إنه الدعاء ده بديو قف إنه الدعاء ده بديو ها إلهي دعوة أقبل يا سبحانه وتعالى قال ربكم ادعوني أستجب لكم وادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين واذا سالك عبادي عني فان غير موجوب دعوه الداعي اذا دعان قف انه ربي بري سبحانه وتعالى الدعاء بدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده دعاء ايذا عباده النبي صلى الله عليه وسلم سوما دعوينك النبي وبدنا صلى الله عليه وسلم كنت عايسن جري لبدعو ايا وبدنيد النبي دعاء عليه الصلاه والسلام أنا صوح وريي وعيد دعاء أنا سواقرني سنسوما خادم في النبي صلى الله عليه وسلم ومدينة النبي شوي 8 سنة وأديقها هو يسوي كنتي اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعاء سال النبي وبني بدعاء عليه الصلاة والسلام اللهم آتنا في الدنيا حسنة إلى دونك حسنة حسنة وامحي وعافمات وحول حلالة وعرور ونايسن وسي ونايسن وهو وناكسن وسمعة وناكسن وضاعي عبادة وناكسن خير دواي حسنه وفي الآخرة حسنة وادم دافكي
وجنة إلهي وردها إلهي وكا سوما دعاء صاوبا للنبي صلى الله عليه وسلم مركا وحو يري أنس وحديثك وريي هدو أما وحو قد دعايسان جري دعاء ذان كليجيد أما الدعاء كان هدو قد دعايسو تنو ختم جري تنو ختم جري حديثك دعاء الله بعض وحي دعاء أي وريسي أمنا أم سلمة وحال ويدي أم سلمة دعاء وقبضنا النبي صلى الله عليه وسلم كنت دعايسان جري دعاء وقبضنا markuu nabi gurigaaga joogo xaasaska nabi kamid ahayd Soomaa musalama waxa tar waxa ugu badnayd yaa muqallib alqulub thabbit qalbi ala diinik hadii tarmad wariyo xasan waa ha yaa muqallib alqulub thabbit qalbi ala diinik allah qulubtaka gadiyo qalbiga ku sug diintaada kaasa ugu badnayd ha marka ducada qofku inuu badsado wala ducada jawaamicda oo wax badan labada duco kale waxay ducooyinka nabigu ku ducaysan jiray sallallahu alayhi wasallam اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك حديث صحيح هو مسلم وريه النبي صلى الله عليه وسلم كنت عايزن جري ها قلوب تربحكم سبحانه وتعالى صوماه هذا عربي أقول أما عربي وأظن بدنا أقول سبحان الله كنت عايزته سبحان الله كنت عايزه إله إذا مناف إله إن حريصه إله يتوسي إله الماء يهجاج إله سيج هجاج أنا يتوسي مسلم كإله نفط هذا له دعية الماء قال له دعية والد كذا له دعية إنك قال دعية قرابة الدعاء تلك الدعاء صومالي مسلم الدعاء وسيود تذكر أن الدعاء أنا أشرك هلي ساسوما دعاء ساد دعينس maxaan niri marka muxaadarada ku saabsanee diyaar garow geerida in adduunka aan lagu kadsoomin geeridu maxay tahay waan sheegnay adduunka in aan lagu sirmin iska jirtid niyo wanaagsan iyo ikhlaas alcamal in lala yimaado faraa'ida in lagu dadaalo waajibaadka toobada in la badiyo qalbiga in laga warqabo عمل صالح وكاهر هيا مركا دمتيد وبعد موتك كو سكونايا اجركا ان لاغا شقeeyo nafta in la xisaabtamo in dad fiican la saaxiibo geerida in la badiyo xuskeedo aan geerida la halmaamin qofku inuu ku dadaalo xusn al khaatima waxyaalaha qofku in meel fiican ku dhinto oo sameel xun geeridu ugu imaanin ducada in la badiyo qofku ducada badiyo rabbi bariyo subhanahu wa ta'ala rabbi waxaan weydiisanaa subhanahu wa ta'ala إنه أدونكنا إلى علي آخران نحفظه سبحانه وتعالى وديسننا ربي وحن كبرنا سبحانه وتعالى إنه فتنت الدنيا فرح بدنا نجا إلى عليه ونجا إلى عليه يا قبر يا عذاب كيسي يا عذاب النار إن ربي خاطون نوصو بيه إن ربي نهاياتي ضمانتين قفك استوى هو يوينكا بياشا علمادا كنعسطادا مدحدا قبلها يردا ويلشا إن لا هيجي تذكر ما ربي كبرنا سبحانه وتعالى شيطان كشرتي سيكون إنشني إنسي لا شرته إنه يقبطان كبرنا قوك سمرات يسوع خير الله سي أنت جران الله عافيه أنت فقر الله كقاضو أنت عرورت الله عرور الله سيو عرورت أنت لنا إلهي بارها وقدقه سبحانه وتعالى سبحانه دبك الله كساره مسلم كدبك الله كساره ريغزة ولا دبي يهودي يسوق تجين يا قالوا أن الله حفظيه دبك الله كساره قالنا الله جبيه يوحي مارت مسلم كديبه هي تطي خير كشقينا يا باب الدعوه يا خير كي مساجد رجل دمر با دورة بابلون خير الله سيو إله نجا قبل سبحانه وتعالى الله نجا شرسيو وحي قفنا الله نجا عفيه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك جزاك الله خيرا الشيخ محمود إلهي سبحانه وتعالى ميسان كيس حسناتها وحوجيو محاضرة سوناكسن كساب سنة جريدة وديار جروجدا ونصو جدي أننا إلهي أننا ديك كوي كو انتفاعه إخواننا بن آدم كسي السبع وحا قريبة إنه حقيقوها يو أركيو أصل كيسي iyo maxadaadkii uu soo maray sida sheekha sheegay ba hadda
إلهي سبحانه وتعالى مركو ليه من أي شيء خلقه ورأسل كيسي أوريجينال كيسي انت لقي ماذا انت المحل عبوره مركز في ريست أصل كبن آذن كا يمشي لقى عبوري إنه النطفاها أو إله سبحانه وتعالى ومراحشي فرح بنيد أمريي كذبنا إلهي وحليه هي ثم السبيل يسره وحوف ذي جدكي ونجدنا هذا وقت اللي جوجو دور سنة قبر باجرتي أو أدو فولنيسي مددر دكتور كجرتي أفرع شمري كجرتي أدو فولنيسي أيان waxaan isdhahnay armaya qoladan ay rabaan inay ku ciyaaraan gabadhan marka waxaan rabnaa inaan ka bixino meeshan isbitaalka geeyno isbitaalka marka waxa joogay oo iska lahaa qoliyahan mataqaana kristiyaanka islaan meesha joogtay waxay nagu tiri ilmahani meesha ku jira yaa galiyay hada jawaab kale ma laha ilmahan ilaahay meesha galiyay marka waxay tiri ilaahay galiyay baa ka soo bixin kara kaliya dhaqaatiirta tay isu yimaadaan dhammaantood oo wax kasta la sameeyo daqiiqada uu soo baxayo ilaahay uma garanay dhahayn wax soo bixin kara ma laha marka suga ilaahay ku kalsoonaada sabrana waxa maleenayaa muddo kama soo wareegin ilaa si tartiiba ilaahay uga soo saaray iyo dhashay gabadhii marka taa waxay ku tusinaysaa thumma sabiila yasaro ilaahay waqtigii ugu talagalay ka soo baxaya maxaa dhacaya marka adduunkan joogtid oo hadda adduunkan joognaa wixii aan soo marnayna dhammaan waan soo marnay oo thumma sabiila yasaro iyo wixii ka horeeyba thumma amaatahu fa akhbarahu insaankii baa horteena ku dhimanaya annaga dhaqayna waan ka fangelinayna waa qaadayna qabrigan dhigaynaa